وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك إن شاء الله تعالى ما أنت وحاجب جبدي يجونانك كتير وفوتشجي هراء ترتن أقوناتك أي قبنيين أورك هجى الله مقعد حي كابه ما أنت ومالنتي سجالات وحترتم دونا لبدأ دكسي كلا دكسي دكسي التضبية تمناد يدكسي السدية تمناد إن شاء الله تعالى وحنا بلي أدرينا دمان دكسي دي هروس بديه وحكلا إن شاء الله تعالى يجنا هم بلي تعلمنا محيط ولا عينه محيط ولا نيده وقول السينو أما نيده ده نقول السينو ساي وسوق قيد قلنا ما يقول هلتان إن ربنا دم إن شاء الله تعالى ثبت كانوا قصوا هلوان دمان دكسي ده اللي بديه دكسي ده بديه وحويه وتضبط سكول دكسي ده اللي بديهنا وحويه واسلا تضبط سكول ويه إن شاء الله تعالى عادي أضل مرة بعد يمسك حد وما هتنتهين لبدا دكسي ما ترتميا waxay kala yihiin dugsiga smart iyo dugsiga nuur academy dugsiga maanta badiya wuxuu noqon karayaa ka bari laga badiyo ka maanta laga badiyana wuxuu noqon karayaa ka bari badiya marka waa wax iska dhacay inta badan noloshay ka mid tahay marna inaad yara kusto marna laga badiyo marna aad badiso adigu ceebna runtii maaha laakiin iskuulka laga badiyana waa inuu dhiirigelin qaato oo dadaal fara badan galo ka badiyana waa inaanu isku halayn guusha maanta galay uu isaguna dadaalo oo aanu isdhiganin inta waxa raaca kullay tartanku waxa la garay laba nin kaba wada qosliso cidun baa badin doonta sidaan rajaynayo marka anaga kullay ba hadina laga badiyo dhankayaga horena waa looga badiyay maaha waa naga iska faraxsan aan iska tagi doonaa waayo waxaan naqli jiray doorasho lagu tartamaya ama wax kale lagu tartamaya laakiin aqoon baa lagu tartamaya waa inoo cusubta ururka hagaya arinta bilaabayna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waana arin loo baahnaa waana idinku garab taaganay insha Allah ta'ala waana arin ay bulshada u baahnayd iyo gobolka iyo wadankuba guud ahaan tartankan maanta la qabanayo annaga oo ku cusub sidii maamul Saciid Saalax sheegay hadina laga badiyana waa hambalyeynayna haddaanu badinana iyadana annaga iska hambalyeysan idinkana hambalyadan dhinaciina ka sugayna waxaan jecelahay inaan loo arag laba iskuul oo tartamaya ee loo arko aqoon kororta aynu kala faa'iideysanayno waxaan kaloo hambalyo aan u dirayaa labada iskuul ee tartami doona hadduu Allah wada leedmo annagu haddaan laga badiyo waa caadi haddaan badinana waxaan caado u lahayn waxaan kaloo altale u dirayaa altale hambalyada macallimiinteeda sharafta leh oo ka mid yahay macallin Ibrahim iyo macallin Baxnaan anagu horta haddaan badino waxa weeyaan waa markii koowaad aan tartankan ka soo qayb galno waana day nagu cusubtay xiraan jiray haddaan badino waa markii koowaad aan bad iska la kulmay doono haddii laga badiyana waa markii koowaad aan guul darro la kulmi doono xiraan jiray labaduba xaggan waxaan meesha u nimi dunida oo dhan baa iska sidana in mar laga badiyo mar adiga badisid waa barmadow iyo barcad marka anagu academy afka ardayda ku hadlaya aad iyo aad baan uga faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galno tartankan warqada qaado adaya dugsiyada smart حبلاوية دوكسية سمارت نمبر 3 نمبر كسدحات هلو فرو نمبر كسدحات الحكورنية الصبر على الشهوة البطن والفرج يسمى الصبر عن شهوة البطن والفرج يسمى الصبر عن شهوة البطن والفرج يسمى العفة الشجاعة التواضع الحلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقعيقو بسم الله مقعيقو ويورب يوسف كوليد كسعة دكسيقة هو سادحي اسمارتي هذه عن سؤاشة جوابت هذا اسكو دايو وحي نغانا سابعضا عفة صح دكسيقة نور أكاديمي نمبر كانوا تكسوغينا نمبر كشناد الله فريا نمبر كشناد وحين وصل بحضي
qofkii ugu horreeyey ee soo islaama ee reer madiine ahaa waa ba abubakar asidiiq ta khadiija bintu khuwayli ja sacad binu suraara xa cabdiraxmaan binu cawf magacaygu waa nimco cabdixariir su-aasha jawaabteedu waxa weeye ja sacad binu suraar waa sax jawaabta ay bixiyeen waa sax waa dugsiyada smart nambarka labaad number two waxayna odhanaysaa macnaha ereyga falcon soomaali ahaan waa ba guguule ta qooley ja salamadhle xa galaydh الرحمن الرحيم magacaygu cabdilqaadir waxaanan ka soo jeedaa dugsiga hoose dhexe smarty su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxweeye waa jaado salamadhlaha egnay waan ka xumahay waa khaldan tahay waxay sax ku ahayd jawaabta xarafka xa oo galaydha nuur academy nambarka koowaad iyo nuur academy nambarka koowaad waxaa inooga soo baxay waa barwaaqo ka guure inta aad barkhad saydho beer cadaad hayaboohsan waa barwaaqo ka guure inta aad barkhad saydho beer caddaad hayaboohsan tuulcmaanseedkan waxaa tiriyey ba abwaan hadraawi ta abwaan salaan carabey ja abwaan siciid maxamuud xa abwaan axmed siciid afkudhiye الله وبركاته magacaygu waa cabdirashiid sulaymaan xasan oo ka socda iskuulka nuur academy haddaan jawaabta su-aashan isku dayo waxay la tahay ba'da waan ka xumahay waxay sax ku ahayd abwaan siciid maxamuud waxaan u yeedhaynaa dugsiga smart iyo nasiibkooda nambarka afraad haddii la furay waxaa ka soo baxay 4 mindiyood iyo 6 bilaydh qiimahoodu waa shilin 136 6 mindiyood iyo 5 bilaydh qiimahoodu waa shilin 164 raadi qiimaha mindi iyo bilaydh ba qiimaha mindidu waa 16 qiimaha bilaydhku waa shilin 10 qiimaha mindidu waa shilin 19 qiimaha bilaydhku waa shilin 10 qiimaha mindidu waa shilin 19 qiimaha bilaydhku waa shilin 15 qiimaha mindidu waa shilin 15 qiimaha bilaydhku waa shilin 18 بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa idin maxamed cabdi kana socda dugsiga smaart haddaan su-aashan jawaabteeda isku dayo waa ba'da oo qiimaheedu ba'da waa ka xumahay waxay sax ku ahayd ta'da oo qiimaha mindiyuhu inay 19 yihiin dugsiga nuur nambarka lixaad haddii la furay waxaa ka soo baxay من قواعد الحكم في الإسلام با الجهاد تا الزكاة تا الحج ح التفكر magacaygu waa maxamed jaamac cali kana socda dugsiga hoose dhexe Anwar Academy maadaama su-aasha jawaabteeda isku dayo waa xa atafakur waa ka xumahay waxay sax ku ahayd ba oo aljihaad waayo smart baa la sugaya number 7 waxay ka odhanaysaa barqin horada 2 goor haddaan baaciyo celiyo goortay cabbaar biliqsatay meel isbabacdaaye bishmaha madow iyo markay boolka hore keento tuducmaadseedkan waxaa tiriyey ba xaaji aadan afqalooc ta cali aadan goroyo ja maxamed nuur fadal xa cabdi iidaan faarax بسم الله أنا magacaygu yahay xamdi axmed jaamac kana socota dugsiga smaart haddaan isku dayo jawaabta waxay noqonaysaa ta waa sax jawaabta ka timi smart alnuur nambarka sagaalaad waxaa ka soo baxay qaala allahu tacaala in yasha yudhibkum wayaأti bikhalqin jadiid aayaddani waxay ku jirtaa suuradda ba suurad faadir ta suura saba ja suura qaafir xa suura fusilat
shan jawaabteedu aniga waxay la tahay suuratu faatir oo ba'da waa sax weeye dugsiyada smart number 13 number 13 fur number 13 waxay ka odhanaysaa da'da maxamed waa saddex laabka da'da inantiisa 10 sano ka hor maxamed waxay ahayd shan laabka da'da inantiisa raadi da'ahooda iminka ba da'da maxamed waa 7 jir da'da inantiisu waa 20 jir ta da'da maxamed waa 50 jir da'da inantiisu waa 18 jir ja da'da maxamed waa 65 jir da'da inantiisu waa 30 jir xa da'da maxamed waa 60 jir da'da inantiisuna waa 20 jir بسم الله magacaygu waa maxamed cabdi kana socota dugsiga smarti hadii aan su'aasha isku dayo waa tiida waa ka xumahay waxay sax ku ahayd da'da maxamed baa 60 da'da inantiisuna waa 20 waayay alnuur labadii asxaabi ee nebiga ku daba tukaday waxay ahaayeen ba abu bakar as-siddiq iyo umar bin khadaab ta ali bin abi talib iyo usman bin affan ja cabdiraxmaan bin cawf iyo abu bakar as-siddiq xa cabdiraxmaan bin cawf iyo ali bin abi talib cabdiraxmaan ali shire shaashada isku dayo jawaabteeda waxay noqonaysaa ja في أبو بكر الصديق وصحبه تسير سمارت نمبر كوبيتوما نمبر كوبيتوما وحيرنا نساء قال الله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون آياتنا وحي كترتا سورة دا با سورة قافر تا سورة فصلت تا سورة فاضر حا سورة صبا magacaygu waa cabdiqaadir axmed carab anaa ku socda dugsiga smarta hoose dhexe haddana su-aashaas ku day waa taada fusilada تا نمبر 10 waxay odhanaysaa su'aal saynaysa ugaxanta qaybtiisa noqota midhaha waa ba ugaxansidaha ta furubada ja dhuunfaxal xa ugaxanta معاه عبد الحرير سؤال jawaabteedu waa taa oo fur u baa waa ka xumahay waxay sax ku ahayd ugaxansidaha dugsiga smart 14 nambarka dambe kuwan soo socda keebaan ahayn xubnaha taranka labka ee ubaxa ba faxal sidee iyo miiqubax ta furubo dhuunfaxal iyo ugaxansidee ja ugaxansidee iyo faxal sidee xa furubo iyo faxal sidee السلام عليكم هدان سؤال اسكو دايو waxay noqonaysaa taada oo noqonaysa furubo doon faxal iyo naxsidi waa ta waa ka xumahay waxay ahayd faxal sidee iyo miiqubax waayahay nambarka u dambeeyo ma idin furayaa alnuur waxa u soo baxay micnaha erayga eagle Soomaali ahaan waa ba haadka adag ta gorgor ja gorayo xa jugley magacaygu yahay Huda Cabdiraxmaan Maxamed kana socota iskuulka Nuur Academy waxaan maleeyaa su'aasha waa ta baynu eegaynaa way saxeen su'aasha dugsiga alnuur waxaan filayaa su'aalaha inay dhamaadeen aad iyo aad bay mahadsan yihiin labada dugsiba runtii waxay muujiyeen tootarka guud oo laga rabay 70 waxay khaldeen 3 su'aalood afarna way saxeen marka 40 bay keeneen saana waxa wareeg labaad u gudbay iskuulka alnuur Academy labada iskuul baa hal mar saacadka loo qaraaco runtii waa tartanay waana laga guuleystay markii horena qorshaha runtii noogu jirtay waliba waxaan jecelahay inaan xusuusiyo ka soo qaybgalayaasha waxaanu doonaynay sanadkii inaanu ka hadhno xageena waanu sheego waxaan ku yidhi inuu dhowr jeer baanu qaadnay waxaanu doonaynay sanadkii inaanu iska nasanno oo aan iskuulla kala jaanisino dabadeedna way ku qanci waayeen way la soo hadleen ka soo qaybgalay waa markii ugu horreysay aanu horta wareegga koowaad ku hadhno laakiin noloshaa sidaasa oo iska leh marna inaad kufto marna aad dhacdo
garaafka noloshaa sidaa gebigiisuba marka horeba macnaheedu maaha in iskuul aqoon badan yahay midna aqoon yaray laakiin waxa weeyaan nasiibka ayaa runtii soo saaray gari laba nimanka kama wada qosliso nin un bay guushu raacdaa anigu samalihi Nuur Academy baa guulaystay laakiin waxaan leeyahay waa wada guulaysan maadaama aynu tartan aqooneed isugu nimi anigoo ka bilaabaya labada dugsi ka soo qaybgalayaasha oo dhan ururka hage waxaan leeyahay waa wada guulaysan waynuna wada guulaysan doonaa maanta haddaanu badinay way dhici kartaa in laga badiyo waanu ku faraxsanahay in maalintii ugu horeysay uu tartankuna soo dhaweeyey oo aanu gudubnay waxaanay noo tahay runtii dhiirigelin weyn ayay noo tahay